way shuruudaha ku xidhan shuruudaha igu xidhan waxa ka mid ah inaan magaceeda sheegin way inaan magaceeda aan sheegin way waxa kale igu xidhay iskuulkii qisadaas ka dhacday inaan sheegin way waxa igu xidhay iyada laftigeeda iyo waxa weeyaan maanta xaaladaha de wax qofka si loo fahmi karaba inaad si dadban uga hadasho inaan si dadban qisaduna ka sheekeeyo mooyaane inaad afaara kale inaanan iyada marnaba waayo waxay tiri noloshayda maanta waa 10 sano kadib way 5 guri bay magaaladii ku leedahay aba ku shaqaad 5 guri bay dhisatay wadana Xuseeno way gala soo dardaarantay ma garanaysaa dibadda ayay joogtaa way 4 wiil bay leedahay ma sha Allah noloshay ku nooshahay inaan taas maalintii dhaweyd way la soo hadasho waxay tiri macallin maxaan kugu soo abaalnaqaa way deedna eray baan ku hore waatahay daawadayaal waa mar kale iyo wareysigeeni taxanaha ahaa ee waayaha macalinka barnaamijkan oo kala socotaan Gary TV ayaan alaaba mararka qaar waxaan ku wareysanaa macallimiinta wadanka halkan maanta waxaan ku wareysan doonaa wareysi gaar la yeelan doonaa mid kamid ah macallimiinta wadanka waa Professor Xamsi Cabdullaahi Maxamed macallin soo dhaw markoodan ku soo dhaweynaa marka Professor soo dhaw una ku soo dhaweynaa Gary TV aad iyo aad baad mahadsan tahay saxafiga sare Axmed Shaakir waan ku dhawahay Gary Media ilaahay fadligiina aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhawaad insha Allah idinku way macallin kulli waxa tahay macallin ruga cadaaya muddo badan baad soo shaqeynaysay arday baad wax bartaa iskuulada kala duwan ee wadanka inta badan fiisigiiska lagu yaqaana sidoo kale Master of Education baad tahay xagga manhajkana aqoon baad u leedahay maanta qisooyin badan baad nala wadaagi doontaa runtii oo aad baan ugu faraxsanahay in maanta wareysigaas ina dhex maro waxaad haysaa xog iyo qisooyin ku saabsan ardayda bal intayna qisooyinka aynaan gelin horta waa kuma Xamsi Cabdullaahi Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صحفي أحمد شاكر آدي أدبان مهسنتي تيم كان جليد ميديانا أدبان ومهنقيا برنامج كان وايها معلم كرارنتي أدبانهم بليانيا معلمين وين خبراء أنا أد بدن كودا أصحابنا هيبا الله ورئيستي نوالي برنتي مال في عمبو دقاي حكلونا دي أدبان مهنقيا أستاذ مصطفى عراقي رنتي ساقناها xiriirihiina xiriiriyay barnaamijka runtii isaguna aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa intaa kadib kale magacaygu waa Professor Xamsi Cabdullaahi Maxamed marka Hargeysa la joogo professorka waxa loo yaqaan macalinka jaamacadda dhiga laakiin marka aqoonta laga hadlayo professorka wax ka duwan waxa laakiin professor macnaheedu waa macallin jaamacadda uma ka hadlay waxa la yiraahaa ma bariga hore ka xishoon jiray marka arkaa asxaabteeda wada qaadatay ayaan isriday mal ardayda ku moodi doonteen aanad way kallay anagu shahaadada sare masterta ayaan ku qaatay cilmiga waxbarashada gaar ahaan manhajka post graduate-keyguna education bay 15 sano u dambeeyay waxaan ka mid ahaa macallimiinta ka howlgalayay dugsiga Al-Bahrain gaar ahaan ka dhigay maadada physics-ka sidoo kale 10 sano u dambeeyay waxaan ka howlgalayay dugsiyada sare Salaama gaar ahaan qaybta habla anigoo ka dhigay isla maadada physics-ka waxa kaloo ka mid ahaa macallimiinta ka howlgasha xafiiska imtixaanaadka qaranka 13 sano u dambeeyay waxaan ka mid ahaa supervisor baan ka noqday infiltrator baan ka noqday assistant baan ka noqday marker baan ka noqday maadooyinka carabiga dugsiga dhaxwaan saxay physics-kana adoo 6 sano u dambeeyay macallimiintii saxaysay baan ka mid ahaa waxaan ka mid ahaa macallimiintii xilligii corona loo qaatay inay duubaan manhajka qaranka TV-ga qaranka ka duubaan waxaan ahay qoraaga buugga caanka ee la yiraahdo What do you know about the physics buuggaas oo runtii soo baxay 2013 kaasoo ku turjuman 3 xaf English iyo Arabic iyo Soomaali saddexdaba ku turjuman kulli ku sii tiigaali mayno aad baad maasan soo dhow way ku soo dhaweynaya mar labaad Professor waxa jirta maalin dhow toole mowduuc aan isla qaadanay caqabadaha nafsiyeed ama bulsho ee haysta ardayda ka haysta hadii noqdo dugsiga sare iyo waxbarashada jaamacadda labadaba ka haysta dhanka psychology-ga marar badan aad baad u akhrida xagga psychology-ga intiina mowduuca guda gelin waxa jirta qisooyin maanta hayso runtii qisooyin aad u xiiso leh oo dad badan noloshooda bedelaya waxaan jeclahay inteenan barnaamijka aan qayb kale ka dhiganay in qisooyinka kugu soo dhaweeyo ku soo dhaw macna aad iyo aad baad saxafi u mahadsan tahay barnaamijkan maanta aynu ka hadlayno waxa la yiraahdaa psychological
and social challenges that cause the high school students to lose motivation. waa caqabadaha cilmi nafsi nafsaani iyo bulsho kuwaasoo sababa in ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadaha ka reebine inay waxbarashada ka niyad jabaan. caqabadahan aniga bilowgiisii akhrintooda waxaa jiray barnaamij igu kalifay inaan akhriyo. 2016 ayaa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed anigoo seminar ka jeedinaya 400 hablood meelahaasaan seminaarka u jeedinayay. saddex macallin oo aad iga aqoon badan ayaa markaa jeedinayay. anigu markaa waxaan ahaa xiriiriyo programka iyagaan u xiriirinayo maamulahan saaxiib hayno xataa iyaga maan aqoon wuxuu yiri bal barnaamijkan noo xiriiri. barnaamijkii markaan xiriirinay 16 saacadood buu kale barnaamijku qaadanay. 16 saacadood markuu barnaamijku qaatay waxa dhacay macallimiinta si fiican oo qurux badan bay ardaydii ula hadleen. waxbarashadeena Axmed Shaakirow marka education la dhiganayo saddex qaab baa fiican in ardayga laga dhiso. qolada education ku taliyaan ardayga waa in aqoon ahaan laga dhiso, ardayga waa in xirfad ahaan laga dhiso, iyo ardayga waa in caadifad ahaan laga dhiso. ninka waxaad moodaa manhajkeena qaybta ugu weyn ee ka maqani inay tahay qaybta caadifada. boqolkiiba 70 waxbarashaduna waa qaybta caadifada, waa qaybta psychological leeyahay caadifada. ardayga waxaan u dhiganayo haddaan muhiimadiisa loo sheegin, haddaan qiimihiisa loo sheegin kuma dhiiran kara inuu dhigto. manhajkeena gebi ahaanba waxaad moodaysaa qaybta educational psychology inay ka maqantay. barnaamijkii seminaarkii markaanu galnay ayaa waxa dhacay markay soo dhamaadeen ugu dambeysay baan hablihii koodha hablow anigu raggan la aqoon meehiyo qofka ugu aqoonta yar baan 2 minute dhagihiina ma maahin karaysaa. 2 minute dhagihiina ma maahin karaysaa. deedna hablihii waxay yiraahdeen 2 minute baad seegaysaa iyada waxaan ku maahin karaynaa. ardayda waad ka garanaysaayo muddo badan baan ku maahin karaynaa macallin wax noo sheeg. waxaan ku oraa anigu wax badan idima sheegayo laakiin waxaan doonayaa 5 qodob idin sheego. 5 qodobna inaad xifdidaan ayaan doonayaa. qodobka koobaad wanaajiya xiriirka idinka iyo Ilaahay idinka dhaxeeya, iyo isla qodobka xiriirka idinka iyo waalidkeed ka dhaxeeya wanaajiya. xiriirka idinka iyo Allah idinka dhaxeeya iyo ka waalidka idinka dhaxeeya. kaas waa pointiga koobaad baan leeyahay. pointiga labaad ee idin sheegaya waxa weeyaan habeenkii hadday idin suura gasho 8 saacadood seexda. waa hadday idin suura gasho waxaad seexanaysaan 8 saacadood. qodobka saddexaad ee ardayda u sheegay waxay ahayd biyo badan cabba. biyo badan cabba. maydhasho badanna sameeyo maalintii hadday kugu suura galaysayna 3 jeer xataa maydhatid. maydho haddaad ka badin kartidna ka badi. khudaartana cuna ayaan pointiga labaad ka dhigay. khudaartana cuna. qodobka saddexaad waxaan maraynaa qodobkii afraad baynu maraynaa. qodobka afraad waxaan idhi kalsoonida naftaada samee. kalsooni nafeed samee. naftaadana u noolow, noloshaadana fududayso. kalsoonida waa hal point intaas. kalsooni nafeed samee, naftaadana u noolow, noloshaadana fududayso. qodobka ugu dambeeya waxaan idhi aad samaynaysaan waqtigaaga maaree, hadafkaaguna ha ku cadaado. waqtigaaga maaree, hadafkaaguna ha ku cadaado. intaa yar markaan idhi anigu waan iska tegey. safar baan magaalada ku haa, magaalada deganaan may hayn, waan iska imid. 2016 bay ahayd. 2017 ayaan mar labaad seminaarka qaybtii dambe noqonay. isla ardaydii oo marka ay ka baxeen qoladii form 4 ay dugsi sare u haayo oo form 4 cusubna soo galeen, form 1 cusubna soo galeen baan u tagnay. ardaydii ayaa markaa anigu mawduucan aan qaatay psychological educational psychology aan qaatay. dabadeedna macallinku inta badan markuu galaaska ku jiro
inta badan ardayda xaaladooda waanu yara fiirfiiriyaa oo u fiirsadaa waxyaabahan arkay waxaa ka mid ah 400 ee hablood ayuunbaa waxaan arkay inan Axmed Shaakir wejigeedu nuurayo hablaha kale ka iftiin badan aad u nuuraysa inantaas waan yaabay nuur aan caadi ahayn oo wejigaaga inantaasi markaynu sida caadiga ee bini'aadamka u qiimayno hablaha kale haddii qurux la eego inaan madow xigtaabahay ma garanaysa maarin dhalal xigidii la sheegi jiray bay ahaydoo inan dee qurux lagu tuhmi karaba may ahayn haddii ay noqoto bilic iyo waxay dadku xidhaanna inanta ugu yara dharka liidato oo duruufbaaba ka muuqatayba laakiin waxay ummadda kaloo dhan kaga duwanayd wejigeedaa dhalaalayay iftiinaan caadi ahaynna way lahayd ardayadii uun baan yaabay waan u fiirsaday wejigeedii baan eegay deedna waan u yeedhay seminaarkii markaan dhammaan waan u yeedhay waxaan ku ihi adeer 400 ee hablood hablo badan oo kaa noola sarreeya way jiraan laakiin weli maan arag arday sidaa wejigiisu u nuurayo maxaad samaysa waxay tiri macalin seminaarkii hore 5 qodob baadna siisay anuu markaa wax weyn buu maarkii hadalka waan iska tuuray markaasoo ma garanaysaa hadalka waan iska tuurayuuno wax weyn baa uma arkayn waxay tiri macalin seminaarkii hore ayaad 5 qodobna siisay sanadkii hore 16 noloshaydii un baan hadalladaadii ku ablaagariyay betri deedna waxaan ku uri yaa anigii baa fahmi waayey say ugu ablaagaraysay deedna waxaan ku uri adeero sideed u ablaagaraysay way ardaydu qaarkoodba aad u maskax badan nolosha wax kastoo loo sheegana ablaagarayn kara waa qisadaynu doonayna inaan tv-ga ku duubno waxyaabaha igu kalifay inaan duubana ardayadii oo dhowaan ila soo xidhiidhay weeyaan iyo nolosheedii waxaad ii sheegtay ardayda sini ku tiri ardayadaasi dardaaran fiican bay soo siisay waxaan ku odhaniyo waxaa laga yaabaa jidkii beriga aad martay arday badan oo noloshu maanta noocaagiya oo sidaadii u sugan baa jira waxaa laga yaabaa inay faa'iideeyaane qisadaada raalli ma ka tahay inaan duubo oon tv-ga ka duubo waxay tiri niyow anuu qisadaa maan jeclay in la duubo laakiin maadaamood iga codsatay waan duubaynaa hase ahaatee shuruud bay wadataa bay tiri shuruud bay wadataa anuu qisadaa inaan cibaado ka dhigtaan doonayaa bay tiri saasay ila hadashay maadaamaan cibaado doonayo anigii alla un inay noo dhexaysaan doonayaa bay tiri shuruudaha igu xidha waxaa ka mid inaanan magaceeda sheegin sheegin waxaa kale igu xidhay iskuulkii qisadaasi ka dhacday inaanan sheegin waxa igu xidhay iyada lafdigeeda iyo waxa weeyaan maanta xaaladaha de wax qofka si loo fahmi karaba inaan si dadban qisaduna ka sheekeeyo mooyaane inaanan iyada marnaba waayo waxay tiri noloshayda waxaan ka baqayaa hadday dadku i bartaan oon caan noqdo in barakadu iga baxdo marka waxay tiri qisada mafaa'iidadeeda mise anigu waxba kuma jiro bay tiri macna kuma jiro laakiin qisada faa'iidada dadku wada faa'iideynaysa qisadii baan doonaynaa inaan bilowno iyo waddanka joogtay inaad sheegin waxaasoo dhan way igala soo tarqaalantay waxay tiri waxaasoo dhan anigu uma baahnay bay tiri qisadeen gudagelayna ardaydii baan ku uri haddama sideed noloshaada u ablaagalaysa waxay tiri macalin erayadaadna siisay unbaa noloshaydii ku ablaagalayay bay tiri oo sideeya waxay sameeyey bay tiri markii koowaad beri waxaan ahaa bay tiri xaafadda yaraan ka soo jeedaa bay tiri caruurtaydu waa 14 ciyaala bay tiri anaa ugu weyn bay tiri hooyadii quraac bay ibisaa bay tiri aabbahayna wuu xanuunsanaya guri basa ayaanu ku jirnaa jagada gurigaas ka dhisay anna kuma lihin bay tiri jagada gurigaas ka dhisay anna kuma lihin waxay tiri anigoo duruufta in noocaa lee ku nool haddana noloshu imay fadhiyin bay tiri waxaan uga jeedaa noloshu imay fadhiyin
noloshayda umaan noolayna dadka kalaan noolaabay tiri inanta asxaabtayadii hadday soo iibsatay bay tiri cabaayad yar hooyadayo quraaclayoo garanaya ayaa dhe ilowgeelo cabaayada $20 keen waalidkuna waa dad fiican way soo amahataa bay tiri haddana inan kalaan kaba ku arkaa bay tiri kabii baan idhahaa halkaa dhig noloshaydii qof iswaayey ayaa noqday bay tiri dabadeedna marka santaa erey noola dardaarantay noloshaydii baan ku ablaagareeyey bay tiro waxaan ka bilaabay marka hore maalintaa wixii ka dambeeyey 8 habeennimaan seexdaa bay tiri waqtigeedii bay toos iiga sheekaysaa waxaan ku dhowlibana san dadka ula wadaagno bal noloshaada dee wixii qarsoonon mooyaane inta laga sheekayn kara ka sheekee inta laga sheekayn karo bal ka sheekee ardaydaas waxay tiri 8 habeennimo ayaan seexdaa bay tiri 8 saacadood baan hurdaa bay tiri 4 habeennimaan kacaabay tiri 4 habeennimo waxaan kacaabay tiri anigoo farxadayda iyo reyrayntayda iyo damaashaadkayga iyo noloshan ku jiro ilaahayaa ku keenaya bay tiri cadaygaygaan qaataa waan iska cadaydaa bay tiri 4 markaan sidaa u cadaydo in weysaysto waxaan sameeyaabay tiri salaatuleyl baan tukadaa salaatuleylkaa markaan tukado ilaahay baan taleefon u diraabay tiri berigii hore bini aadankay igu weynaabay tiri maalintaa wixii ka dambeeyey dee ilaaha khasladihiisu fara badan yihiin ayuun baan gacanta hoorsadaabay tiri hal ducaan anigu samaystaan ku celceliyaabay tiri allaahuma yaa muqayira alaxwaal qayir xaali ilaa axsan xaal ilaaha xaaladaa badbedelow xaaladayda waxaad u bedeshaa sidaa ugu fiican u bedel 4 barhka markan gaadha bay tiri berigii hore hawsha guriga ay dhibi jirtay bay tiri ardaydaasi hawsha guriga ayay dhibi jirtay hawsha guriga waxay dhibi jirtay bay tiri haddii koobkaa laygu yidhaa soo jeedi 8 hablood baanu walaalano heblaayaba oo diraan oran jiray bay tiri nolosha fududaysaad nagu tiri bay tiri nolosha fududaysta waxay tiri gurigaba cishaayigana anaa qooshka usii garaaca 4 barhkana iyagoo hurda ayaan dhammaan quraacdana diyaariyaa shaahna diyaariyaa bay tiri ilaa jar baan doonayaa maan tukan jirin bay tiri salaada ardaydaas salaada maan tukan jirin maalintaa wixii ka dambeysay sijaayad baan samaystay bay tiri sijaayadan ku tukado iyo kitaab qur-aan ayaan samaystay salaada subax marka meeshaydaa ku tukado xisbi qur-aanaan akhriyaa bay tiri xisbigaa qur-aanka ah markaan akhriyo waan dee iska quraacdaayo waxa weeyaan quraacdaydiyo anigu waan diyaarsadaan quraacdaa 30 minute 6 xiise ama 7 xiise igu soo waajahan ayaan isha mariya macallimiintu bal inay exercise-ga rabaan inay wax kale jiraan ayaan mariyaabay tiri sidoo kale mobile baan sitaayo mobileka berigii hore tiktok aan isticmaali jiray bay tiri ama facebook aan isticmaali jiray ama waxaasaan isticmaali jiray adigu aaladahaasaan dee isticmaali jiray hadba wixii xilligaa jiray dabadeedna waxay tiri imaka youtube-ka wax kalaba kuma qoree ciwaanka macalinka uma qoraabay tiri casharka ciwaanka la dhigi doono maanta la dhigay ayuun baan daawadaabay tiri tusaalehaan physics baan dhiganayaa density baan halkaa ku qoraabay tiri density markaan ku qoro maanta oo dhan baan eegaabay tiri densityga oon eegaa oon ku faa'iidaysta 6 markay gaadha bay tiri berigii hore noloshayda maadaamaanu kalsooni qabin ardayda kalean bes kala raaci jiray waalidkayna waan cislayn jiray bay tiri maadaamaad nagu tiri kalsooni qaba oo naftiina u noolaada waxaan idhi waniyo $10 reerkii miyaan waxbu tarin $10 baska ku raaxaysaa reerkiina waa dan yare miyaan waxu tarin dabadeedna
go-aan baan qaatay inaan soo lugayo waxbarashadii berigii hore nusa saaca aanay waalidkay awoodeyn ayaan soo qaadan jiray bay tiri go-aan kalaan gaadhoo ah waa inu saacaa laftiisu dhaqaalaha reerka miyaan waxu biiri karayn nusaacaa laftiisu dhaqaalihii reerka miyaan wax ku dari karayn caagad weynoo biyaagu maa soo qaataa bay tiri laba kabo berigii hore waxaan isku mashquulin jiray saaxiibadaa maxay xidhanti huudheerkaan tegay bay tiri ardaydaasi laba kabooda buudhaan kasoo iibsaday bay tiri laba kaboodoo buudha ayaan kasoo iibsaday 6 buura aan kasoo daayaa bay tiri iskuulku aad buu nooga fogay bay tiri 45 minit bay aan soo socdaa bay tiri 45 minit ba erey baan ku celceliyaa waad guulaysanaysaa hididiilay ka shay bay tiri iskuulka waxaan imaadaa bay tiri 6 markaan imaaday iskuulka waxaan ka soo horeeyaa bay tiri ardaydaasi ardaydii baska lagu keenay waxa intaa ii dheer bay tiri berigii hore labada habeennimaan seexan jiray bay tiri oo aan soo jeedi jiray iminka maadaama 8 saacadood soo seexday macallimiintii baan jeclaaday bay tiri awal hore macallinka waan karaasan jiray bay tiri macallinku markuu soo galo ilaa anigii baa isku buuqsanay waxa la odhan soo jeeday macallin walba waan karaasan jiray ruuxan yaa ka hor dhaqaa jiray macallin walba waan karaasan jiray bay tiri macallimiintu unbaa jacaylaan caadi ahayn laga dhex dhiga bay tiri maadid kasta waa jeclaadaan bay 10kii maadaba ee secretary-ga lagu dhiganayay form 4 baan ahaa markaasoo si aan caadi ahayn baan u jeclaaday bay tiri 10kii maadaba macallin waliba markuu ii soo galo ardayda berigii hore wax weyn baan ka soo qaadi jiray bay tiri ardayda berigii hore wax weyn ayaan ka soo qaadi jiray maanta ardaydu inay kuraas yihiin inay miisas yihiin inay albaaba yihiin inay daaqad yihiin waxba kama soo qaada bay tiri naftaydu maanu noolaada ardaydaas waxay tiri macallin kasta dantaydaan ka raacaa xidhiidhka naga dhexayn jiray berigii hore macallimiintu mararka qaar baan xataa dee xidhiidhka naga dhexay baa fahmi la waayi jiray bay tiri iminka xidhiidhkii macallinkaa fahmo macallinka waxa naga dhexeeya wax leeraa subject friend macnaheedu macallinka subject aa dhigay baa naga dhexaysa danaysata noqday bay tiri ergaas isticmaashay waxay tiri waxa noqday danaysata berigii hore dantayda waan ka boqon jiray laakiin iminka danaysata noqdo macallinka wax aqoon ku jirta bayna ka qaato man hamiyaa bay tiri hadduu ofiska ku jiro macallin halkan ayagu yara adag hadduu galaaska ku jiro waan weydiinaya berigii horena waxay igu adkayd inaan macallin su'aal weydiiyo bay tiri ardaydu way ka baqaan inta badan macallinka Axmed Shaakir inay su'aal weydiiyaan anigu waxay tiri gacantu bay taaganba ardaydii bay karaasitay bay tiri arday laftigooda aan waxa gacanta naga daji waa naga daji aan wax ka dhig aqaar waxa u dhiganayba ayaa inta faa'iideysanaysa oo iyagu dee noloshii hore ku nooleed qaar ku nool ayaa karaasanayay marka in macallin su'aal la weydiiyo ma garanaysa maxaad waqtiga nooga ridaysaa ma garanaysa dadna ardayda waxay tiri kowda markay 12 kana la soo deji jiray bay iskuulka 45 minit oo kana soo socdaa bay tiri 12 iyo 45 ilaa kowdii rubuc 30 minit waxaan qorshaystay in haddii salaad laygu leeyahay aan tukado haddii dee wixii aan cuni karana aan cuno 2 saacadood oo kale haddana seexdaa bay tiri ardayda kowdii rubuc ilaa 3 rubuc anigoo haddana qoslaya oo faraxsan oo nololkii waxaad nagu tiri bay tiri dhowr jeer maydha mar kastoon seexanayana waan maydhaa bay tiri mar kastoon soo toosayna waan maydhaa mar kasta binaadamka waxa loo yahay mar kasto maydho culays baa ka dega hadduu maydhaba culaysyo fara badan ayaa binaadamka ka degaya waxay tiri berigii hore maydhashadu way igu adkaatay laakiin maanta maalintii waxa laga yaabaa inaan 7 jeer maydhan karo ardaydaas waxay tiri 4 marka la galo 4 markay bilaamato ilaa 4 jimicsi yar oo physical ah ayaa bilaabay bay tiri guriga dhexdiisa carcarraabay tiri waxa guriga dhexdiisa afarta iyo markay gaadhay intaas ilaa 5 tana
waxaan samaystay bay tiri 10 minute oo albaabadu u xidhayiin oo la yiraahdo 4 ilaa 4 oo hooyada shir jireeda la qaato way oo albaabadu u xidhayiin ha hooyadii shir albaabadu ma garanaysaa way ayaa shir albaabadu u xidhayiin way dabadeedna maanta oo dhan baan uga sheekeeya caqabadii nolosha hooyo maxaa tala haysa baan ku dhawaad dadkeenu imaka way waalidka way yaraystaan war waalidku waa dadka ugu talada muhiimsan weeyaan ardaydu inta badan waxa laga yaabaa inantu ama inanku inuu saaxiibkii talada ka qaato Waar. qof aan waxba ku kordhin karin oo la mid ah isaga Ha. inuu ka qaato ardaydaas waxay tan noloshii oo dhan waa bedelo 10 minute hooyadii waxaan ku uri maalin kasta 10 minute mar hooyo kaaga martay ah 10 minute 10 minute oo kale nafteeda kula sheekaystaan sameystay better alaata kamida ha way 10 minute oo kale oo nafteeda kula sheekaysto meel yar oo farsamada gacanta laga dhigto ayaa noo dhaweeyay better bariga hore badooni baan moodi jiray in la gala better farsama gacan hay farsamada gacanta la gala way. badooni baan moodi jiray 5 ilaa 6 waxa la soo xaysiiyay xinne 6 ilaa 7 waxa la soo xaysiiyay meel yar oo dawaara habeenimo ayaa la dhigi jiray hay'ad yar baa ka mas'uulahay better dabadeedna xinihii markii la soo xaysiiyay may waxay u tiri 6 ilaa 7 ayaan qaldana make up yar baa la soo xaysiiyay better waxa yar dumarka isku qurxiyaan barashadiisa 5 ilaa 6 xinna la soo xaysiiyay better way labada markii la soo xaysiiyay khamiistii iyo jimcaana 3 saacadood oo gali koraa oo dawaara ayaa meesha laga baranayaa better dhammaantood waa free better saddexdii correspondence qoray better way xinina waan isqoray diwaalkan isqoray make upkii waan isqoray dawaarkiina waan isqoray better saddexdiiba markii aan isqoray waxa dhacay better ardayadaasi maalin walba noloshaydii 24 saacadood saasan soo wareejiyay better maal life cycle ay ina ku sii tiigaalinay Way. ma garanaysaa noloshaydii saasaan u sii wareejiya sanadka maxaa ku kordhay baray way bal isqiimeeyo ha sanadka maxaa ku kordhay intii taladii aad qaadatay kadib maxaa ku kordhay waxay tiri 6 bilood bay ku qaadatay in dawaarkan iyo xinahan iyo make-upyadan samaystaa bay tiri 4 ilaa 6 fursad shaqo ayaan gurigeyga dhexdiisii ka samaystay bay tiri fursad yar oo shaqo ayaan samaystay bay tiri way fursaddaa shaqee samaystay waxa weeyaan bay tiri xinihii iyo dawaarkii baan ku shaqaystaa bay tiri gebiga xaafaduba aniga xinaha ku yugay soo gashaa bay tiri islaamaha iyo waxa weena reer waxa weey iskuulkaygii dhammaa ayaa intan u tegey ayaan ku niyo dawaar baan samaystay kalaas baan umar ma xishoonay bay tiri marka taraysata noqday bay tiri imaka waxa weeyaan imaka ma xishoonay bay tiri barigoon waan caqabadaha waan ka yar xishoon jiray waan baqan jiray bay tiri maadaama adigu tiri dantaada raac ha kalaas iskuulkii baan galaasida dhan soo wada maray bay tiri way waxay tiri waxaan iyo dawaarkaasaan samaystay dee waxa weeyaan qofkii dalad loo talayo qofkii hawl kale loo talayo qofkii ma garanaysa programka halaya soo xidho arday wanaagsan bay ahaayeen bay tiro way wada yimaadeen reerkaygii baa jago u iibiyey bay tiri marka 6 bilood gudahood way reerkaygii jagaan u iibiyey way maanta laakiin caqabad weyn bay haysata bay tiri maanta laakiin caqabad weyn ayay haysata adar maxaa ku haysta wasaaradaha ka mid ah ayaa hay'ad lagu attach kareynaya qof farsamada gacanta wax ka garanaya way xilligii siiraayahayd markaa xilligaas waqtigaas way way dalku iska nimcaysnaa beriga war dabadeedna inan isu duwe markaasoo wasaaradda haystay oo isagana aynaan doonayn inaynu magaciisa xusno oon xikmadi ku jirin ayaa inantii ku adkeeyey way aad buu weliba ugu adkeeyey wala meerayst sideedaba Axmed Shaakiro ha waxyaabaha u fiirsaday waxa ka mid ah innaka madaxdeena qofku ka hooseeyo uu ka kibir baday absolutely xaqiiqi waxaan isirtalo ma la waxa weeyaan talo culayska saaran ba imaka hadad wasiiru gashid si wanaagsan buu ku soo dhaweynay way hadad gudoomiye degmo oo dawladda hoose u gashid si fiican buu ku soo dhaweynay madaxa qorsheynta dawladda hoose ma saranaysaa u gal way 6 bilood buu kula meersanay hadda waa madaxa qorsheyn ma garanaysaa waa halkii ugu hooseysay ee dawladda hoose ee ma garanaysaa la bahleynay xafiiska maayirka inad gaadid baa ka fududaanaysa ma garanaysaa inankii baa markaa
inantii oo ooyeyso oo dee danyar oo markaa lacag yar baa la qaadanaya hay-adiyo inantaasoo haa $200 baa lagu kabayay inantaasoo lagu ataaj garinaya hadday bayroolka soo gasho shardigaasa lagu xidhay dabadeedna inantiiba arrinkiibay soo fahanto ilan imika danteeda ay garanaysaaye waxaan ku odhi adaan wasaaraddii waa wasaaradee deedna ardaydii waxay igu tiri wasaaraddan u baahanay waa wasaarad heblaayo wuxuun baa ku odhin alxamdulilah deedna way yaabtay waxay tiri maxaa dhacay macalin marka wasiirkan aanu saaxiib ahayn wasiirka aanu saaxiib ahayn dabadeedna bal ilaahay amarkiisana wasiirku maalintaa gobolka aanu joognay ayuu kormeer ku marayay iyadaa dee bare ka badnayd iyada iyo aad u bare ka badnayd deedna waxaan ku yidhi nooge way iga shakisato dadku waxay moodaan macallimiinta dad yaroo masaakiin oo dee waxba aan dadka ku xidhnayn oo magaranaysa waxba aan dhamayn karin magaranaysa oo dee waxa weeyaan ayuunbay dee ardaydu aaminsanti masaakiintu macallimiinta inay dadka ugu liita dee magaranaysa bulshada yihiin laakiin dee xidhiidho badan samayn karaan oo dee dadku dee bulshadii lamid yihiin hayo dee berigan yaryareen waxaan moojid xataa inaan macallimiintu waxba cuninba magaranaysa dabadeedna wasiirkii baanu xafiiskii gobolkaas isagoo joogaan ugu galay inankii sidwaha shakiyo uu naga soo dabagalay malaa waabay kaa dabaradayo way kugu diri aniga markaa xikmadii igu jirtay inaan inankaa ku diraa isaga laftiisa waxaan aaminsanay duruufta inantan haysata midka adag inay haysata suuragalab isaga laftiisa duruufta inantan haysata midka adagba inay haysato wasiirkii baa igu yidhi wariya xamsiya war waan kuu baahnaa waar iska waran waar waxaan ku wariya war waxaa ka bax saaran maxaad leedahay war waxaa ka bax baan ku niyo anigu wasiirku heerin maayo hebelow baan ku odhi hebelow wasiirnimadaadu waxay sharaf leedahay markay danyarta gaadho adeegaagu inantii baan hawsheedii uga sheekay waxaan ku idhi inantaa haddaad maanta qori weydid shaqada dib dambaysa teleefonkayga haw soo garaac markaasuu waniyo dhowr sanana ismaynu arag ninkaaga dabeecadda xun ma garanaysa waniyo dhowr sanana ismaynu arag dee xaalka dejiyo dee iswaraystaan islaamay maanta casuum baaban islahaabee intaad igu casuumid xataa casuumad kaagama baahni baan kuri casuumad xataa kaagama baahni waxaad aniga igu casuumi leed xataa inantaa u siisii waxa weeyaan waxa laga yaabaa casuumadeeduna $100 qaadan lahayd inantaa $100 dhiibaan anaa uga tiraasmay iyadaa u baahnay anuu ma bahniyey magaranaysa dabadeedna inanta xog hayntina macallin baanu ahaa meesha fadhida waa meelaha macallimiinta ku fiican yihiin garanaysa xafiisaanad gelayn oo cid kaaga horreynayni ma jirayso oo macallinku waa dee bulshaawi dabadeedna inantii buu ku yiri soo tir heblaayadii maalin walba nagu weerarisa macallin xamsa ay macallin hayo waxa weeyaan dee heblaay waxba qori karaysaa ma ku radaa amar qasi heblaay ila taa shaqaale dabeedna markiiba warqadii ay qortay inantii subaxii baa indhaha laga qaaday hay'adii shaqaalaha laga qaaday bayroolkii kaadhkeediina la siiyey inantaasi maanta waa 10 sano kadib 5 guri bay magaaladii ku leedahay 5 guri bay dhisatay waddanaan Xuseen oo igala soo dardaarantay dibadda ayay joogtaa 4 wiil bay leedahay masha Allah noloshay ku nooshahay inantaas maalintii dhaweyd way la soo hadasho waxay tiri macallin maxaan kuugu soo abaalnaqaa deedna eray baan ku odhay waxaan ku odhi innamaa nudcimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura anigu maanta wax allaala waxaan kaaga baahanay ma jirtaan ku odhay laakiin masaakiinta ogow masaakiinta noocaagii oo kala ah maalintii ilaahay aniga ii kaa soo diray dad badanoo maanta liitaa jira ogow qisada nuxurkeeda maxaynu uga jeednaa haddaba hay'adii way raacday hawsheedii way dhammaysatay inantaasi maanta waxay ka mid tahay hantiilayaasha
ما شاء الله way la yara kaftanta waxay tiri qoyskii baa iga yara burburay way magaranaysaa qoyskii ayaa ayaa iga yara burburay way dhalinyarteena niyow dambe ha waxaad moodaa inan kana lala soo dardaarmo la yidhaa inan taas iska ilaaliyo is adkee ma garanaysa nin raga noqon nin raga ma garanaysa inan tana hooyadeed la soo dardaarantay tiraaho waxa weeyaan nayaa nacasiya doqoyaan lagu barin laba qof oo midba mid iska ilaalinaya gurigii ku wada nool halkay ahayd ilaahayna qur-aanka muxuu ku sheegay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna markii guurka laga hadlayay waxaa la yidhi dumarkiinu hubaydii yihiin idinkuna hubaaditi hugu waa maxay dee waxaynu xidhanay ina asturaya quruxda badan ee ina ma garanaysaa ayaa laga hadlaya ardayada qisadeeda waxaan u fiirsaday arday badan oo ardayada lamida jira oo duruufahan maanta ku nool sababtaynu barnaamijka u duubaynaana aynu qisada aadka u dheeree waktiga dheer qaadatay u duubaynaana waa hal xikmadu ardaydeena inta badan qeybta psychologiga macalimiintii imaka dhammaan barnaamijyadaad qabato o dhan waan wada dhegeystay ilaa hadda barnaamij maan aran qeybtaa psychologiga ka hadlaya daas wayba anigu waxaan isiri barnaamij macalimiintii hore ka duwan oo qeybta psychologiga ka hadlaya la hadal maalinta ardaydii sidaa igu tiri waxaan bilaabay inaan akhriyo bugaagta psychologiga hal mawduuc baan qaatay anaa qaatay mawduuca waxaa la yidhaahaa psychological and social challenges that cause the high school students or university to lose motivation caqabadaha nafsi iyo bulsho kuwaasoo keena in ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacaduhu ay ka niyad jamaan waxbarashada dalka qisadiina saxafi axmed shaakirow halkaasay nagu dhamaatay insha allah waana inantaa maanta nolosheeda u kala fadhido ee sida fiican runtii nolosheeda u maareysatay ilaahina subxaana watacaala sabab aniga iga soo dhigay lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun min xumri nacam laa taxqirana min almacruufi shay waxaa jira arday badan iyagoo waayaha iyo duruufaha kusoo koray macal waxaan doonayaa bal inaan ku weydiiyo muxuu yahay nuxurka qisadani aad iyo aad baad umahadsantahay saxafi nuxurka qisadani waxa weeyaan caqabadaha ardayadaasi dareemaysay caqabado lamida ayay maanta dareemaan ardayda soomaaliyeed si guud ee ku jira dugsiyada sare iyo jaamacadu waa xaaladda la yidhaha welibana xaaladda qofku uu aaminsan yahay in bulshadoo dhan isaga u soo jeedo oo isaga raadinayso qofka dhalinyartae maanta dugsiga sare dhigta inaan ha noqdo ama jaamacadda dhigta talooyin kooban baynu siin lay si noloshiisa uu wax uga bedelo talada koobaadanu siin lay waxa weeyaan wanaaji xidhiirka kuu dhexeeya adiga ilaahay bini aadankeenii maanta shaakirow waxaa dadkeennii ku weynaaday quluubtooda bini aadankii waxaana ku yaraaday quluubtooda ilaahay taasi waxay keentay qofka mar walba cid baa ku weynaanaysa haddii qalbigaaga ilaahay ku weyn yahay bini aadanku waxba kuma noqon karaan haddii qalbigaaga bini aadanku ku weyiinna culays bay laabtaadu dareemaysaa waayo bini aadanka ma raalli gelin kartid runtii markaa ardayda soomaaliyeed waxaan leenahay kalsooni danaystayaalna noqda sida ardayada waxaynu leenahay danaystayaal noqda ardayada welibana qisadeedii waxaan ka ilaabay waxay tiri berigii hore dadkoo dhan baan u furfurnaabay tiri oon wada dhexgeli jiray maalintii talada ay siisay laba hablood oo hareeraha iga xirgi jiray ayaan fariinoo dareemay tiri waxaan ku whi heblaaye ma intayn halkan joogno mise markaynu aan gurigii tago markaan tago xataa taleefonkayga kaa qaban maayo haddaad soo garaacd
halmee baa la yaabay halmee waalatay halmee dawaqtay war maxaa ku dhacay ma harmiyo talo ma garanaysa war talo maxaa ku dhacay waxay xataa taleefankayga idinka qaban maayo anigu danaysata noqday betri danaysata ayaa noqday waxaa laga yaabaa imika ninka siyaasigii markuu dankaa leeyahay 24 saacadood baynu kusoo garaaca laga yaaba dantiisi makaa fushaday taleefankaa qaban maayo waxa la yidhaha intuu dantaa kaa leeyahay adna taada ka fushalaya caqliga saliimka waxa la yidhaha qofku garanaysa qofku adduunyadu waa mutual interest waa mutual interest waxaan doonayay 4-3 tusaale inaynu kusoo gebagabayno barnaamijka oo qisooyin kala oo qisooyin koobana inay kusoo qisooyinka galmacay waxaan jeclahay 4-5 taleed inta siisay bal inaad igu soo koobto 20 aad baad u mahadsan shantii qodob saacadoo dhigtiya aad baad u mahadsantahay qodobka koowaad waxaynani xooji xiriirka ilaahay iyo ka waalidkaaga waa qodobka koowaad qodobka labaad biyo badan cab maydhasho badan samee khudaartana isticmaal halka haddayna yara tusaalaha ka bixino iminka keliyaheenna kale nin digtoorana waatoo waan ku garanayaa keliyaheenna shaandha yar baa ku jirta shaandhadaa yar waa shaandhada shaah oo kale shaandhada shaaha imika marka shaaha lagu shubaya haddii aan waxa weeyaan lagu shubin waxa weeyaan la maydhin dee waxaa dhacaysa way gufaysmataaba biyahan badan in lagu leeya cab jidhkeennu waa sida gaadhigoo kale jidhkeennu waa sida gaadhigoo kale gaadhiga haddaan la biyeyn friction baa dhaca physics-ka birihiisa way iscunaan haddii birtiisu iscuntana waxaa laga yaabaa gaadhigiiyo u baanaa 1 litiroo biyaa inay $2,000 kaaga qaadato marka dambe qarashkiisa xataa koska qodobkaas waxaa la yidhaahaa cilaaqaadka xooji xidhiidhka biyo badan cab qodobka kale ee muhiimka waxa weeyaan naftaada u noolow danaysta noqo dantaada cid kaloo kuu qaadi kartaa ma jirto oon adiga ahayn sidoo kalena waxaad samaysaa hurdo badanna 8 saacadood seexo waktigaaga maaree hadafkaaguna ha ku cadaado